يا سلام قايل دمان تود با ميل جوجان سلام تاكدي waxaan idinla joogay imika muddo sanada waxaan ka mid ahay qurba joogii SNM waxaan joogi jiray dalka Sacuudi Arabiya magaalada Riyadh waxaan ka mid ahaa gudidii taageerada iyo ururinta lacagta muddadaas sanadkeedii la joogay waxyaabo badan ayaa ii kordhay dhulkana aad baan u maray indha dheeraadana waanu lahayn waxa kordhay waxa isbedelay arko waxyaabo badan ayaan soo qaatay kolka waxa ila noqotay wixii aan arkay iyo wixii waana ah ee aan meesha wixii aan qoonsaday waanadooda inaan halkan ka jeediyo barnaamijkeega waxa la yiraahdaa magaciisa dagaalku dhaqanka ummadda ayuu bedelaa miyuu bedelaa maaha ayuu bedelaa kolka waxa weeye wixii aan arkay bedelaadii iyo isbedelkii aan arkay dalka Soomaaliland 99% waxa u bedelmay si wanaagsan oo sidii hore ka heer sareyso qaayale midka soo haray 99 markay noqdeen wanaag midka soo haray ayaan halkan waanadiisa horeysiinayaa inaan ii soo jeediyo oo aan wax idinka tuso waxana weeye horta dani ka xishood ma laha wixii aad dalkaaga u aragto in aanay wax munaasib maanta ahayn oo wixii hore wax ka wanaagsan aanay imanin ayaan doonayaa inaan idin tuso waana soo jeediyo aniga oo lahayn dan kale iyo wax aniga ii gaara iyo siyaasad iyo midna aan wax kale ku jirin ee dalkayga aan u daacadahay wixii aan u garto inaan qalad tahay ee ila aragtaan inaan halkan waana idinka soo jeediyo midka qura ee 99ka horumar ka goonida wuxuu noqday wixii saddexda shay afka la geliyo mid waa cuntada midna waa qaadka midna waa sigaarka saddexduba waxa weeyaan arrin important oo u baahan in waxa lagaga baxsanayo wixii dhibaato ah laga hortago cuntadu waxa weeyaan ka xishood ma laha waxa weeyaan nolosha bini'aadamka iyo wixii Ilaahay naf geliyayba waxa wuxuu Ilaahay naf geliyay waxbay cunaan quraanjada ugu yar waxbay cunaan aqal bay samaystaan waxbay dhalaan xaas bay leeyihiin maskax bay leeyihiin calool bay leeyihiin way shaqaystaan waxay cunaan bay samaystaan wax la wixii nafsidana iyadoo ugu yar quraanjo aqlina way leedahay difaac bay leedahay haddaba waxa weeye cuntadu waxa weeyaan waxa Ilaahay ugu talagalay inuu bini'aadamku ku noolaado berigii horeba cuntada way inagu yarayd laakiin waxaynu cuni jiray wax aynu xarago cunno oo inagoo degan aynu cunno waxaanu ahaaba cuntada magaaladu bariis iyo hilibun baa meel walba lagu hayay markii la qaxay ee dadku barakacay waxa yimid dhaqan cusub oo xagga cuntada taana waxa keentay qaxoontiga dadka qaxoontigii ma kuma warwarla maxaad cuntaa mana gaajala waxa ugu weyn ay ku hamiyayaan inay wuxuun helaan ku tala galsan yihiin waxa weeyaan cunto helaan ama wuxuun helaan haddaba dhibaato weyn baa hortaala waxaana dhacda in si aanay wuxuu cuni jirin wuxuu cunaan si aanay u gaajoon jirinna u gaajoodaan haddii ay arkaan saxni cunto ah oo lasoo hordhigay waxay rumaysan yihiin inaan mar labaad la soo hordhigayn hadduu gacanta geliyana inaanu mar labaad ku celin karayn dabeedna waxay ku kaliftay intay labada gacmood ku qaadaan inay mid afka geliyaan ta kalena ay ku taageeraan oo labadii gacmood wixii ay qaadeen bay afka isugu geeyaan waxay liqi karayeen ay liqaan arrintaa waxay la soo jiifeen muddo kuwii yaryaraa ee ka daba kacay intaan dhulkaba la soo gelin tii bay qaateen oo iyaguba waa qaxoonti
dadkii iyagoo taabagala dalka soo galay waxay ku wada noolaayeen oo ay la soo galeen nolosha cuntada ee boobka ah boobkii markii halkan ay la soo galeen dee waxba uguma iman halkan waxay soo galeen halkii ay ka yimaadeen waxay ahayd ummad iyo dad dhisan ooy qaxoonti ku ahaayeen waxay soo galeen halkoodii oo la burburiyey oon waxba oolin oon biyo oolin oon wax lagu iibinaynin oon meel dhisnayn oo meel alle meel istaaga aanu garanayn oo aqalkiisii odhanayo wareegow kani kaygii ma aha ayay soo galeen wax boobkii ka bedela may arag waxay ka bilaabantay haddana halkeedii wixii la helo wixii lagu caawiyo wixii ay gacantooda soo galo wixii ay helaan inay sidii boobkii u cunaan waxay la soo jiifeen iminka 27 sanadood kuwii ku dhashay ayaa ku taabagalay kuwii ku dhashay ayaa ku taabagalay kolkaa waxaa meeshii ina hor timid boobku waxba inamuu yeeleen waxaa ka dhashay cudur waxaanu u baahan yahay dadka in la tuso arrintaana waxaa ka markhaati furi doona dhakhtarada ninku marka uu iminka somalilan jooga maanta ilaa maalintuu soo galay waxaa isbedelay somalilan cuntada lagu cuni jiray hilib bay ahayd oo way jabnayd wuu yaraaday xoolihiina way yaraadeen iyagoo hilibka xiise u qabay soo galeen ismuu bedelin waayo dadkii buu ka batay hore magaalada joogi jiray xoolihiina xoolihii hore hilibka laga heli jiray bay ka yaraadeen waxaa dhacday inuu hilibku qaali nagu noqdo innaga reer somalilan haddaynu nahay helidiisu dadkana dantiisii way kala wada duwan tahay waxaana markaa dadka dalka soo galay waxaa run ah inay u badan yihiin oo ay u bateen dad aan waxba haysan oo nafta ku dagaalamaya yoomiyadeeda inay maanta noolaadaan dabeedna waxaa soo martay fursado ama casuumada ama hilib loogu yeedha markay soo marto boobkii markay ku dagaalamaan sidii hore u boobaan waxaa ku baxsanaya wasad hilib oo adag oo lagu kariyey dhaqankii soomaalida oo hilibku adkaa markay calooshiisa gasho dhanna uma soconayso calooshiisuna dee ma gogogoyn karto ilkihii way dhaaftay uu ku duqayn lahaa ee uu ku gogoyn lahaa mididiina way dhaaftay oo lama soo yaryarayn bisaylkeediina lagama dhigin wax la muudhmuudhiyey oo aad looga shaqeeyey oo la dhuundhuumiyey lagama dhigin wasladaa hilibkaa ee kuusan ee jiidhkaa ee caloosha gashay aan la hubin inay wax la firaaceen iyo wax in kale aan la ogaan karayn sababtaa waxay dhaafeen ilkihii ilkuhu waxay ilaaliyeen waxa caloosha tegaysa dhanna way ka duqaynayaan laakiin markay laf arkaan ay qac ka siiyaan ama wax kaloo raacayba waxa u sheegaan carabkuna wuu soo riixay hadeedna gacanta qaado waa laga soo celiya qofku uu tufaa haddaba arrintaa inkaasi waxay la timid dhibaato iminka dadkii oo dhan saamaysay oo fara badan waxaana yimid cudur calool xanuuna dhakhtarka marka la geeyo qofka buka markuu kaadida iyo dhiiga iyo wax walba qaado ma soo baxayo cudurkii waayo hilibkan maanta cunayaa ma shalay hilibku maanta cunayaa ma shalay dee dhiiggiisa kama soo baxayo cudurkiisu dhakhtarkii wuxuu odhanaya qofkan uu caafimaad qabaa waxa ma qabo laakiin waxaa haystaan u malaynayaa gastri ayuu odhanayaa dhakhtarku dadka adduunyadu ummad waliba sibay wuxu cuntaa oo dhaqan kala duwan bay leeyihiin waddanka inoogu dhowe etoobiya sida uu cuna waan arkay waa si aada u wanaagsan waliba inagama dhaadhici karto waxa weeye hilib lafi la soo coto ragga lama soo hordhigo dumarku ma sameeyaan hilibkii dumarku waxay ka dhigayaan laftii hilibkii bay deedna yaryaraynayaan lafaha maraq bay ka saaraan maalinta u horeysa dibna looma arko hilib buuran ma arkaysid hilibku cidibu laaleegyo wuu yaryar yahay deedna waxay ka sameeyaan maraq cas oo wanaagsan
dabeedna waxaa lagu cunaa laxooxda haddaad neef qasho hilib baarki maysid kaa mooyaane anigaa neef qalay oo markaan 2 cisho maray idhi war neefkii meey wasaa laygu qoslay waxaa la yidhi waxaanu halkan ku haysanay waraabaha iyo soomaalidu lafta cunaan waana laygu qoslay waasaan waayo dee hilibkii waynu dhammaysanay maxaad u ogaan weyday inaad cuntay laf baad arki weyday bay yidhahdeen waana runtood kolkaa waxa weeyaan waddanka kale waa labaad waa talyaanigu hilib aanu makiinad marin oo aanu ridqin ma cuno si kastaba hadday u dhacdo xaq ma aha inuu cuno marmar uu dadka kale ku dayanayo oo gaalada kale oo ama iyaga u samaynayo mooyaan laakiin waxa weeyaan dhaqankiisu hilib oo dhan waa inuu ridqaa taasi waxay keentay seeftidii caloosha etoobiyana waa qolada labaad innagu waxaynu hor taallaa hilibkan dhallinyarada iyo dadka ragga waaweyn iyo cid kastaba cantuugayso ee xiisaha loo qabo sidii hore sharafta ahaydee loo cuni jiray ee hilibka intuu midi loo qaato la yaryaraysan jiray aan loo cunayn in hawl buu la yimid cudur buu keenay waxa weeye wasad weynoo hiliba oo adag oona aada loo karini calooshu ma marayso deedna qofkii aakhirka wuu ku dhimanayaa arrinta cuntada taan ka hadlaya ee ugu weyni waa taa marka loo soo noqdo qaadka nimaan lacag haysanin inuu cuno maaha oon iibsan karaynin waxaanay tahay dhaqaalihiisa ayuu wax yeelayaa waxaana uu maalinba maalinta ka dambaysa kor buu sii kacaya ama ninka laftiisii baa badsanaya kolkaa kii iibsan karayay dhaqaalihiisu wax yeelayaa iyo saxadiisa ka aan iibsan karaynin inuu cuno maaha waayo dee waxa weeyaan wixii waa waxaan waxba ka soo gelayn sida uu ku cunayaana waa si xun oo silic oo baryo ah waxa kaaga daran nimanka aroortii cunaya ama ha iibsadaan oo lacag haysan ama yay haysan waxa ku cad in ay ka baxeen khadkii bini aadamka ee dhismaha bini aadamka iyo mas-uuliyadii way ka baxeen nimanka aroortii qaadka cunaya sababtaa dadkii uu shaqo tegey nin waliba ubadkiisii iyo wuxuu u shaqaynayaa iyo ooridiisii iyo reerkiisii iyo dantiisii isagu intuu soo toosayba hadday jeebkiisa wax ku jiraan uu qaad siisanaya ama kii shalay uu qaaday baa siinaya inta lasoo rawaxayo way qayilayaan haddaba marka lasoo rawaxa halkay tegayaan aqalkiisiisa muxuu kula noqonayaa ma ku noqon karaa waxaan leeyahay ninkaasi wuxuu ka baxay xuduudkii bini aadamka ee nolosha dadka miyirka qaba wuu ka baxay dib ha isugu noqdo iyadoona hadalka aan leeyahay uu aflagaado yahay haddana kama dhowraayo afka oo ugama turaayo ninkaasi waayo waan la talinayaa waxaan leeyahay ninka qaadka gelinka hore cunow waad ka baxsan tahay mas-uuliyaddii bini aadamka iyo xuduudkii diiniyan iyo insaaniyan iyo dadnimo iyo dhaqasho iyo midna kugumay hadhin isagana halkaasaan kaga baxaya ilaahayna waxaan idiin baryayaa inuu idiin dhib yareeyo sida hawsha iyo dhibaatada uga bixi lahaydeen waxaa soo hadhay ninkii sigaarka waxa igaga filan haddaa markaa sigaarka cabbaysaan aad soo dhex fadhiisto oo aan 10,000 oo googo-an oo mid waliba iskii yahay la soo baxo oo markaad xabad shitaanba aan 1,000 ololiyo waxay odhan doontaa wuu waalan yahay tan adigu aad gubaysa ma arkaysid haddii markaad xabad shidataba aan $1 dabka suro oon shidoon ololiyo aniga idinla wada yaabi doontaan idinkana sigaar bay idiin wada shidan markaa waxaan idin leeyahay sigaarku waa xaaraan sababtoo lacagtii oo sideedii ayaa gubaysaan ninka bini aadamka ana waxa weeye dee kolley haddii aanu diin ku dhisnayn bini aadamku waxa aada u adag
inaanu noloshiisa xalaasha ee jirta ee ilaahay noogu talagalay uu ka lumaya waayo waxa weeyaan qofku inuu yidhaa muslim baan ahay un taalla meesha ilaahay wuxuu inoogu talagalay oo uu inaga doonayaa cibaadadii way fara badan tahay waxaa ka mid ah inaynu nafteenna ilaalino بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يوحد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كو شنو ينس وحنو أبو ربيل إنا يعابدان هذا منك بني آدم كي مركا وحلق دبون إنو كنا ولا إسلام نما استجوا دين تيسا كعنتا كوهستا يا قلبك وعمل كيسي فلايا taasi waxay ka joojin kartaa waxyaabaha qaladaadka in laftiisa ka imanaya ilaahay musrifiinta uu sheegay ma garad wuxuu kulu washrabu wala tasrifu inna allaha la yuhibbu almusrifin hadaba ninka ilaahay yiri waan ku nacay waxba uma hadhin kolkaan waxaan u arkaa sigaarku inuu qaadka ka dambi weyn yahay waxa kaloo dheer yahay qaadka haddaad tiraa iska daa sigaarka indhahaagu way gororayaan sankaaguna wuu gororayaa afkaagu wuu quncunayaa sibuu noqonayaa madaxaagu wuu weynaanayaa sibuu noqonayaa hurdadaadu way qalqalaysaa marna way badanaysaa marna way yaraanaysaa abiteeskaagu marna wuu kordhayaa marna hoos buu u dhacayaa yacni dhibaato badan oo nikosiinka ayaa madaxaaga gelaya dhibaato badan buu isagu sigaarku la leeyahay haddii aad tiraa iska daa way adag tahay oo dhibaata alla ayuu leeyahay sigaarku laakiin qaadku haddaad iska dayso maalinta horeysaba hagaag baad u seexanaysa kuguma reebayo dhibaato kale ilaa naftaadan ayaa kuu sheekaynaysa kolkaa waxaan idiin sheegayaa idinkoo iga raaliya waanada halkaasaan kusoo gebagebaynayaa waxaanay dhex taallaa ummadda Soomaaliland oo dhan waxaanan ka codsanayaa nimanka arrinta hagaag u arkay waxaan u filayaa inay yihiin dhakhtarada inay waana adag ka soo jeediyaan marka labaad iyagana waxaan la hadlayaa culimadu arrintaasi way wadaan habeen iyo maalin laakiin inay arrintaa cuntadana hoos u eegaan oo dadkii waslad yaroo kubad leegoon calooshiisa ka shaqayn karayno laynayso ku baxsanayso oo wax dhib yar wax laga qaban kara tahay taana waxaan leeyahay iyadana ha ku daraan oo shaqadii hore ilaahay ay ku wada guulaysteen iyadana ha ku darsadaan waxa ay harsan idinku soo noqon doonaa waxaan idin yidhi Soomaaliland 99% bay hore u martay waxa la odhan doonaa maxay yihiin si dhab yar baan taana idinka qancin